ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah kulanti habboon dadweynow kani waa qaybtii koowaad ee barnaamij dabagal ah oo iradaha uga gelaya xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed waxaanu idinku soo bandhigi doonaa door intee leeg ayuu Mahdi Guuleed ka qaatay u dabaka dhiibkii Itoobiya loogu gacan geliyay halgamaa Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax dhalashada ay sitaan Mahdi Guuleed iyo Qalbi Dhagax badalka Soomaaliyeed mise wadulka Xabashi la yiri su'aalahaasi iyo kuwa kale oo badan ayaan ku soo qaadanaynaa qaybta koowaad ee barnaamijkeena dabagalka oo toos u galay waabta uu dhacdiido Mahdi Guuleed ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo qof dadku magacyo badan ugu yeedhaan ama u yaqaanaan waxa uu ku dhashay ceelka Hargeysa kadib hanaqaadkiisii waxa uu dukukuuray dalka aynu jaarka nahay ee Itoobiya isagoo halkaasi dhigtay dheriga iyo dhiishaba wuxuu iska dhiibay dalkaasi isagoo qaatay jinsiyadda dhalashada Xabashida sidaasina wuxuu mar dambe ku noqday muwaadin Itoobiyana ninkani loogu yeedho Mahdi Guuleed ayaa la sheegaa inuu ku soo barbaaray dhaqanka Itoobiya isagoona waxbarashadiisii sare ku soo qaatay dalka Itoobiya gaar ahaan ceelka Addis Ababa sidoo kale Mahdi Guuleed waxa uu ka soo shaqeeyay jeelasha iyo xabsiyada adag ee ciqaabta dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Soomaali Galbeed oo uu tacadiyo badan ka geystay Mahdi Guuleed markii dambe wuxuu soo wareegay Somaliland gaar ahaan Hargeysa oo uu ka qabtay shaqooyin kala jaajaad ah kuwaas oo ah qorshayaal basaasnimo iyo arrimo sirdoon oo uu ugu adeegayay dalka uu muwaadinka u yahay Itoobiya waxa uu xilligaa gashaday shaarka oo ku gabashada xubin ka tirsan guddida doorashada Somaliland isagoo u metelayay mas'uul ka socda xisbiga UCID daawaya sida aynu ka warqabno doorashadii gugii 2017 waxa lagu doortay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Farmaajo kaasi oo waqtigaasi ku ololeynayay siyaasad ka dhana inuu Itoobiya ka xoreyn doono guud ahaan Soomaaliya hase yeeshee madaxweynaha waqtigiisu idlaaday ayaa socdaalkiisii ugu horeeyay taariikhdu markay ahayd 3 bishii 3aad 2017 ugu dhoofay ceelka Addis Ababa isagoo halkaasi kula kulmay madaxdii xilligaasi ee dalka ka talinaysay TPLF waxaanu kula soo heshiiyay inuu fulinayo wax kasta oo ay ka dalbadaan balse waxa uu dhankiisa horqotomiyay hal qodob kaas oo ahaa in dowladda federaalka Itoobiya ay u gacan dhaafin maamul goboleedyada kale ee ka jira gudaha Soomaalida haddaba danjirihii Itoobiya ee Muqdisho ambassador Jamaaluddin Mustafa iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo isrihaan ka soo wada jeeda qoomiyadda Soomaalida balse dhalasho ahaan haysta tan Itoobiya isla markaana ahaa laba qof oo aqoon isku leh oo isku fasal ah waxbarashadoodii jaamacadda Addis Ababa ayaa barnaamijka dabagalka Mahdi Guuleed aanu ku soo ogaanay ka hor dalabkii soo qabashada Mujaahid Qalbi Dhagax inay Mahdi iyo danjire Jamaaluddin Mustafa ay marar badan kulamo qarsoodi ah ku yeesheen barandaha guriga Mahdi Guuleed gudaha gaariga danjirihii dowladda Itoobiya ambassador Jamaaluddin Mustafa halkaas oo ay ku dejiyeen qorshihii soo qabashada Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax safiirkii dowladda Itoobiya ee Soomaaliya danjire Jamaaluddin Mustafa ayaa si toos ah uga dalbaday filla Soomaaliya in qabashada kadib loo soo gacan geliyo halgamaaga Soomaaliyeed ee Cabdikariin Sheekh Muuse madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Farmaajo ayaa la sheegay inuu amar ku siiyay taliyihii nabad sugidda ee waqtigaasi lana oran jiray Cabdilaahi Sanbalooshe in Qalbi Dhagax loo soo qabto oo lagu wareejiyo danjiraha Itoobiya in la wadi jirayba 23 bishii August gugii 2017 ayaa Cabdikariin Qalbi Dhagax laga soo qabtay hotel ku yaala gudaha magaalada Gaalkacyo iyadoo ay soo labadibleeyeen askarta hay'adda basaasnimo ANISA gaar ahaan unugeeda maamulka Galmudug iyadoona lagu soo xiray booraan qarsoodi ah oo ku taalay magaalada madaxda kumeel gaarka ah ee Galmudug gaar ahaan Cadaado xilligaasi isla markiiba Qalbi Dhagax waxaa si dahsoon loogu soo wareejiyay Muqdisho iyadoo lagu jeebeeyay guri xamar ku yaala oo u dhow waabta doonyaqaada Itoobiya markii halkaa maraysay dhowr saac kadib booqasho itus oo itaabsi ah Qalbi Dhagax waxa uu tegay danjirihii Itoobiya ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa safiirka Itoobiyaanka ayaa mar kale madaxtooyada Soomaaliya ka dalbaday in maxbuus Qalbi Dhagax loo dabaka dhiibo cadawgii uu ka soo baxsaday dowladda Itoobiya maadaama uu filayay inuu joogo ciid Soomaaliyeed oo badbaado ku heli doono waa kan muuqaalkii argagaxa geliyay qulubta shacabka Soomaaliyeed ee lagaga soo duubay godkii lagu xiray Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax gesiga dhulkiisa gusha u horseeda geerida dishaay geedkaha foof
haddaba daawadayaal sidaad horeba ula socoteen waxaa shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka ay isla markiiba ka war heleen soo qabashadii Qalbidhagax taasina waxay keentay in la isla oogsado qayladhaan afka labadii taasoo ku gilisay afarta beenajo isla jeerkaasna dhagaha goosatay dowladda Farmaajo iyadoo su'aalihii ugu badnaa shacabku weydiiyeen ay ku adkaatay dowladda taasoo jawaab u weyday afkuna juuqda gabay daawasho wanaagsan gudoomiyaha xisbiga garsoorka xildhibaan Sakariya oo arintaasi raba qaadaya waxaan sugaynayna ma dowladda aanu taageeray wadaniyad ku taageeray daacadnimo ku taageeray muxuu ahaa inay qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed u shaqeynayso midaynayso bay ahayd cidda falka iska soo saareen cidda falkaan gashay oo dhiibtay ninkan ama ku talisay mar kale daawade bal aynu dib u milicsano dhiibistii Qalbidhagax iyo gadoodkii shacabka Soomaaliyeed asagoo mawaadila talay Soomaaliyeed madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa ayaa galay xaalad adag isagoo xaalkiisu noqday way ugu ciirsantay taladu way canweeleegsantay talow xagee baan cuskada mar kale daawade soo eeg taliyihii hay'adda NISA ee kooxda Farmaajo iyo Mahdi bambada ay gacanta u geliyeen oo ku muquurtay jawaabihii shacabka بدر عبد الله سنبل وشوحان جعلنا هذا كبح إنه سؤال كجوابتي فالله رجل جلش عندنا وما هرته يا كمسؤولها لبضع نية هاي حاجات عبد الله سنبل وشيء أخذك أيو كبحي وحاكل مو joogta oo albaabadu u xiran yihiin madaxtooyada ku yeeshay ra'iisul wasaare Mahdi Maxamed Guuleed iyo madaxweynaha waqtigiisu ilaaday Farmaajo oo halkaas ku gorfeeyay shaxdii iyo qorshihii cadawga loogu gacan geliyay Cabdikariin Sheekh Muuse madaxweyne Farmaajo ayaa ra'iisul wasaarihiisii xilligaasi Xasan Cali Khayre wuxuu ku qanciyay galka kiiska dacwadda Cabdikariin Qalbidhagax loo madax banaaneeyo garyaqaan Mahdi Guuleed oo sharci yaqaan isla markaana ay deegaan ahaan ka soo wada jeedaan Qalbidhagax sidaas ayaana faraha looga qaaday inuu Mahdi Guuleed ku shaqaysto falkan iyo inuu soo diyaariyo qaab sharciyeedka ay dawladdu cuskan lahayd dhibista halgamaa Soomaaliyeed Qalbidhagax Mahdi Maxamed Guuleed iyo danjarihii Itoobiya ee Soomaaliya u fadhiyay ayaa si wada jir ah u soo diyaariyay qoraalkii dhagarta ahaa ee ra'iisul wasaare ku-xigeenku hor keenay golihii wasiirada ee xukuumaddii 2017 sida uu inoo cadeynayo egas wasiir hore Juxa baa ra'iisul wasaare ku-xigeenka halka waxa ugu jirtay warqad daraafti ah oo soo qoray waxa aan doodayno anagu moogtahay waxa lama hor dhigay mawduucan baafka loo ka sheegay doodii markay dhamaatay warqad la soo saaray waxa la yiri haye warqadan waxa idin akhrinaya go'aankii mahdigan soo saaray sidoo kale waxa dhankiisa ku marag furay xildhibaan Axmed Maxamuud Dhago oo kamid ahaa mudanayaasha Mahdi Guuleed oo inoo cadeynaya inuu Mahdi qayb weyn ku lahaa dhibista Qalbidhagax oo uu kaga soo horjeestay xildhibaankan ayaa inoo sii cadeynaya in warkii wasiir Juxa uu warbaahinta la wadaagay in Mahdi Guuleed jeebka sare kala soo baxay warqad uu leeyahay ONLF waa argagixiso isla markaana ay tahay in dawladdeenu fuliso heshiisyada labada dal isla markaana aynu ku khasbanahay inay dhiibaan ninkan Itoobiyaanka argagixisada ah si aanu cilaaqaadka labada dawladood u dhimin Farmaajo waa musharax waa shakhsi dhiibay Qalbidhagax Mahdi Guuleed waa ninkii waxaan ka soo shaqeeyay soo ah nin Itoobiya ka soo shaqeeyay waxaan ma garanaysaa aan sidaayma qolaasna xiriir buu leeyahay Itoobiyaanka ugu dambeyntii Mahdi Guuleed ayaa golihii wasiirada ka ansixiyay 6 bishii 9 2017 qoraalkii dhagarta ah ee liiska argagixisada loogu aqoonsaday jabhadii walaalaha Soomaaliyeed ee xaquudirirka ONLF iyo in mujaahid Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax loo daba ka dhiibay cadawga TPLF Allah u naxariistee gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Injineer Yariiso oo waqtigaasi ahaa wasiirka warfaafinta ayaa warbaahinta horteeda ka akhriyay nuqul kamid ah qoraalkii shirqoolka ah ee uu soo diyaariyay garyaqaan Mahdi Guuleed kaasoo daaha ka rogaya inuu u cuskaday qodobada labada heshiis ee ku kala taariikhaysan 7 Juun 2015 iyo 2 May 2016 kuwaas oo aanay waxba ka khusaynin arrinta dhiibista Qalbidhagax iyo ONLF dood dheer kadib golaha wasiiruhu waxay go'aamiyeen arrimahan kow in siyaasadda dawladda federaalku ay tahay mid ku qatanta iskaashi dalalka geeska Afrika ah xoojinaysana nabad ku wada noolaanshaha mandaqadda xoojinta dhaqaalaha iskaashiga iyo amniga isla markaasna aan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya loo ogolayn in jabhado hubaysan ama kooxo argagixiso ah ay gabaad ka dhigtaan heshiisyadii iskaashi ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda federaalka Itoobiya ay kala saxiixdeen sida heshiiskii 7 Juun 2015 iyo heshiiskii 2 May 2016 oo tilmaamaya in dan looga soo wada jeesto arrimaha amniga iyo nabad ku wada noolaanshaha mandaqadda heshiisyadan waxay si cad u qeexayaan kood in cadawga labada dhinac ee al-shabaab iyo jabhadda ONLF ay qatar ku yihiin
amniga labada dal meelna looga soo wada jeesto. ma jirin wax heshiis u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya oo qeexaya inay isugu celiyaan eedeysanayaal ama maxaabiista ee uu garyaqaan Mahdi Guuleed u cuskaday qoraalka shirqoolka iyo dhagarta ahaa ee golaha wasiiradu ansixiyeen oo sheegayay in dib u heshiisiin laba beelood ayaa dhammaan laba qodob oo u dhignaa sidan. heshiiska ku taariikhaysan 7 Juun 2015 ee uu ku saxan yahay wasiiru dawlihii hore madaxtooyada dawladda Xasan Sheekh Maxamuud mudane xildhibaan Mahad Salaad oo nuxurkiisu ahaa dib u heshiisiin laba beelood oo wada dega xuduudda maamulka Galmudug iyo dawlad deegaanka Soomaalida. daawasho wacan waa kan xildhibaan Mahad Salaad oo heshiiskaasi ku sifeeyay hadur iyo hadal meel waayay. وعملي شكل بلا وزير الناس كسر بحي أربعة وحلقوا الشيعي وعمل إيجارين إنه يعسقدين هشيسيو دولة دي هوري صوماليا وزيرا كم إذا أي صحيحات سيدي الشيعين أنا أقول وزيرا دي المقعدة وعنا رامك عريقة سنان ومدى الصوماليا اللي وداجه سيدي أي أهد هي شرعية يعسقدين sida ay tahay ayaan rabaa inaan umada la wadaago mid koobaad waxay tahay heshiiska wuxuu ka koobnaa 8 qodob waxaana la galay bishii May sanadkii 2015 wuxuu quseeyay qolaad ka dhacday dhulkan Soomaalida ay wada degan tahay labada gobol gobolka Qorraxay maamulka ismaamulka Soomaalida iyo gobolka Galmudug maamulka Galmudug. heshiiska ku taariikhaysan bishii May 2016 oo uu ku saxan yahay madaxweynihii hore dawlad goboleedka Galmudug mudane Cabdikariin Xuseen Guuleed oo isaguna nuxurkiisu ahaa dib u heshiisiinta beelaha ogaadeen iyo habargidir ee wada dega xuduudda u dhaxaysa dhulka Soomaali galbeed iyo maamul goboleedka Galmudug. waa kan madaxweynihii hore dawlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo arintaasi beeninaya isla jeerkaasna cadeeyay mowqifkiisa uu ka qabo jabhadda ONLF iyo dhiibistii halgamaa Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. aad iyo aad maaragtay loola yaabo ayaan u arkaa maxaa yeelay waxa meesha taagnaa waxay ahayd qalad ay runtii dawladda gashay oo muwaadin Soomaaliyeed maaragtay loo gacan geliyay cid kale qaladkaas ayay ahayd sidii loo daaweyn lahaa in ay xal ka keenaan laakiin waxaan u arkaa inay qalad kale ka weyn oo inay galeen baan u arkaa. waayahay Cabdikariin qaladka aad sheegtay intaanan wax kaa weydiinin aan u soo noqonno heshiiska laga hadlayo ee adiga aad goobjooga ka ahayd ma jira inaad ka wada hadasheen ama aad ku heshiiseen in ONLF iyo ururka Al-Shabaab ay yihiin ururo argagixiso ah? walaal aniga iyo anoo matalaya dawlad goboleedka Galmudug iyo dawlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya heshiis aan labadii bishii May aan kala galnay 2016 waa jira laakiin heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis quseeyay kuna saabsanaa colaad qabaa'il ee ka dhacday xuduudda labada dhinac colaadaas oo u dhaxaysay labada qabiil ee habargidir iyo ogaadeen oo aan arintaas ayada ku xasilinay. si kastaba ha ahaatee dastuurka Soomaaliya muxuu ka qabaa arrintan aragtida koowaad ee la isku wada raacsan yahay ayaa inaysan meelna sharciga Soomaaliya kaga qornayn in qof Soomaali ah oo gudaha dalka ku sugan loo dhiibo dawlad kale. sidoo kale waxaa xusid mudan in garyaqaan Mahdi Guuleed uu si cad ugu bareeray ka soo qaybgalka fadhigii aan caadiga ahayn ee golaha wasiirada xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ay ku ansixiyeen 23 bishii koowaad 2022 dib uga noqoshada go'aankii garyaqaan Mahdi Guuleed ka ansixiyay golihii wasiirada xukuumadda 2017 kaasoo ururka ONLF u aqoonsaday urur argagixiso iyo dhiibistii Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo loo gacan geliyay Itoobiya. talaabadaasi hore oo uu golaha wasiiradu ka ansixiyeen inay ahayd khalad. garyaqaan Mahdi Guuleed ayaan ka soo qayb gelin fadhigii golaha wasiirada ee xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble taasi oo ay kaga laabanaysay go'aankii hore oo isagu soo diyaariyay taasoo muujinaysa cadaawadda iyo cilqabnimada aan digaxashada lahayn ee uu qabo dadka Soomaaliyeed balse waxa ayaan daraa ilaa iminka inaanay jirin madax iyo mishacid dhaadah ama ku qaada dhagarta uu maleegay dhaqdhaqaaqii gobonimo doonka Soomaaliyeed ee ONLF iyo tacadigii uu u maleegay halgamaagii Soomaaliyeed ee uu u gacan geliyay cadawgii TPLF. waa kan mid ka mid ah nabadoonnada beesha uu isirahaan uu ku abtirsado Mahdi Guuleed oo inoo cadeynaya in Mahdi Guuleed lahaa dhiibistii Qalbi Dhagax. ra'iisul wasaare ku-xigeenka labada magac leh labada magac ninka leh wuxuu ahaa ninkii jabhaddii xaquudirirka hayda ONLF ku sheegay argagixisada wuxuu ahaa ninkii sarkaalkii Soomaaliya kamaan doostahaa raggii 7 dagaalamay
ee xoreynta Soomaaliya gumaysiga la dagaalamayay Soomaalinimada ka saaray ee yiri waa Etoobiyaan waxa weeye ninkii maanta shirkii golihii wasiirada ee ay kaga saarayeen argagixisa inaan ururkaasi ahayn ka cudur daartay ee ka maqnaaba ra'iisul wasaaruhu Soomaaliya uu ka maqnaa halka golaha wasiiradu markay ka saarayeen liiska argagixisada uu ka cudur daartay sababtu ay tahay isagoo ah ninkii la taliyaha sharciyada ahaa ee diyaariyay in shirqoolka la dhigo qalbanagax la dhiibo jabhadda oo lafna lagu daro argagixiso ayuu aas-aasay wuxuu ahaa ninkii kala dilaalay Itoobiya iyo farmaajo isku xiray ee isu keenay gabra waa sahlanaaye anigu waxaan halkan kaga qiyaas garan maayo Allah ayow nin daalina Allah ayow nin daacada deeqada hawsime haddaba daawadayaal Mahdi Guuleed oo ah shakhsiga aynu barnaamijkeena kaga soo sheekaynay ma mudan yahay inuu ilaa iminka qaranka Soomaaliyeed si hor taagnaado jawaabta su'aashaasi idinka ayaanu idin dhaafnay saaxiibayaal waxay nooga qaybtii koobaad ee barnaamijka dabagalka uridaha uga galaya xafiiska Mahdi Guuleed qaybta labaad ee barnaamijka dabagalka waxaynu ku soo qaadan doonaa imisa murashax madaxweyne oo u baratamaya Soomaaliya ayuu heshiis la qaatay waase kuma siyaasiga u dhisaya ama daba ambulan yahay lacag intee leeg ayuu kumishir ahaan uga qaataa murashaxiinta madaxweyne ee danaynaya kuraasta gobolada waqooyi ee Soomaaliland ka tagi waayo ujeedda noocee ah ayuu Mahdi Guuleed ku halqafay wambarka uu hadda dhacdiido jifadeesay dambaabi jirtay muxuu damaciisu yahay awood intee leeg buu ku lahaa Guuleed inay isku muqloobaan maamul goboleedyada Soomaalida iyo dawladda federaalka taasi oo dhaafi weyday khalkhal iyo cayn wareeg xeeladeed halkee ayuu rubaha dhigan doonaa ugu dambeyntii mustaqbalkiisa xeeladeed ama siyaasi su'aalaha iyo xogo kale oo xasaasi ah qaybta labaad ee barnaamijka dabagalka ayaynu daaha uga qaadi doonaa toddobaadka dambe ee nabadgelyo